بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لبديكم كلكي عرت لغو soo dhisay dowladii ku-meelgaadhka ahayd markii xamar la yimi prime minister waxa ahaa marxuum cali khaliif kaleed allah u naxariisto. jirteeku waxay yiraahdeen Puntland buu burburinayaa cali khaliif. xaliban waxaan akhriyay warqad siciidani uu u qoray beesha caalamka ee uu leeyahay Puntland waxa burburinaya xasan sheekh nafayni ku doonay kuwa shalay waan ogaa maantana waaniga warqadda arkay saada bimxuu oran doonaa cid burburinaysaa Puntland ma jirto cid wax ku falaysaa burburkeedana ma jirto. wuxuu cali daacuun idin leeyahay ma jeerteerow cali daacuun waad ka fara badan tihiin waad ka tacliin badan tihiin waad ka dhaqaale badan tihiin isku filaada magac harti la yiraahdaa oo aad wax ku cuni jirteen ma jiro. qodobka intaasaan ku dhaafay. faroole kolkuu maamul goboleedka Puntland haystay wuxuu yiri absame Soomaalinimadaa naga dhaxaysa bani aadan nool oo inta la qabto loo dhiibo mala sanaawi faroole ugu horreeyay. maantana siciidani ninkuu la dagaalamaya waa xamsi absame mi markaa halkaana kabla laxbaa ku lumay. daarood xabadda waxaa u qaatay cabdilaahi yuusuf allah u naxariisto. cawaaqibkeedii waa taa maanta Soomaali kadeedan tahay. farmaajaan noqday madaxweyne siciid cabdulaahi deni baa yiri ninkaa ka soo roga madaxtooyada. daaroodka uu doonaya waa maxay? war ummad yahay mana waalan bise nimankaa ma jirteen baa waalan. daarood uma aanay hambayn oo kabla lax uma hambayn oo harti maanta uma hambayn oo weliba maanta waxay la dagaalamayaan xamsi oo ilayhin cali daacuun maxaad u difaacaysaa? shalay baad farmaajo rideene maalin walba mani baad ridaysaan oo kursigan baad idinku doonaysaan inaad fuushaan. xamsaa difaacaya. war ninka anigu gurigiisana ma aqaan xafiiskiisana ma tago laakiin anaaniyada majeerteenka ayaan xamse u difaacaya iyo taariikhda aan xogogaalka ka ahay ee ay nimankaasi ku kaceen waa tii qabiilka. qodobkaana intaasaan ku dhaafaya. alxaqiiqa 36 kursi baa isaaq leeyahay 8 aqalka sare iyo 28 xildhibaan. iyaga ii codayn doona electionka dambe ayuu rumaysan yahay siciid. warkuu codayn maayaan. ninka xildhibaanka ee isaaq hargeysana ma yaqaan garoowena ma yaqaan wuxuu yaqaan dantiisa. kuwa maanta ku jira golaha baarlamaanka xaasaskoodii Yurub bay wada jiraan iyo carruurtii baasaboorka ay ku tageen xitaa ma yaqaan. reerkaa kursigaa madaxweynaha dhibaato ku ah
إثيوبيا وقال فرماجة سيدي أبسمي أديبي أمحارو باتنا وحيديه سيدي بعد البحنته يرادا ميل بان استاقي كرا وروح فان وينا ودول باتم على الداعون بيمودين على الداعون باصد الصنادوت شارج كرينا يما تشيرتين دول بحنته أوديقه إلى حقه كل إنكاسو كيلومتر وتفاوينه وهدي حبض نقطنا دول بهانتا حبض أدق هدي تلمون نقطنا دول بهانتا تلمون وناكسن والقطقط ككداية دول بهانتا قدب كان انتاسان كدا فيا الحقيقة السسي خاتم ودول بهانتا وحلايه يانلو جوابي وحوا سميي وحنا وصمين دونا حبة صدو بلان ايق نعد قبطها بلان ايق نعد تراد ورواد قدر انتهي شوق ورننا دنتينا كفاعدة اتانا دول بهانتا لايه مامولك اسسي خاتمنا واكو ادكينيا قدب كان انتاس أيام كدا فيا الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنتم سلفنا ونحن بالأطر إله نون حارس إله مد إسلام كأون حارس الحقيقة نقطنا البهنتا تلمي وناكسن والقطقط ككداية دول بهانتين قدب كان انتاسان كدا فيا الحقيقة السسي خاتم ودول بهانتا وحلايه يانلو جوابي وحوا سميي وحنا وصمين دونا حبة صدو بلان ايق نعد قبطها بلان ايق نعد تراد ورواد قدر انتهي شوق ورننا دنتينا كفاعدة اتانا دول بهانتا لايه مامولك اسسي خاتمنا واكو ادكينيا قدب كان انتاس أيام كدا فيا الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنتم سلفنا ونحن بالأطر إله نون حارس إله مد إسلام كأون حارس الحقيقة